Iskuulka hoose dhexe sare ee Alcimra qaybtiisa degmada wadajir ee xaafadda Buulixubey ayaa qabtay xaflad qalin jebin ah ardayda sanad dugsiyeedka 2018-2019. Ardayda ayaa halkaa ku soo bandhigtay nashiidooyin iyo waxyaabo kala duwan oo ay halkaa ku muujiyeen guusha ay ku gaareen qalin bedelashada iyo iyagoo u gudbay dugsiga sare. Ardayda sanadkan qalin jebinaysa waxaa ka mid ah wiil naafa oo muujiyay goobta. Ardayda sanadkan qalin jebinaysa waxaa ka mid ah wiil naafa oo ka muujiyay goobta dareen farxad leh iyo didiilo wanaagsan. Ugu dambeyntii maamulka iskuulka ayaa ugu mahadceliyay ardayda iyo waalidiinta iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladda qalin bedelashada. اسكول العمرة أيان تجايو واسكول علمي أقوم بدنا العمرة تكتايو ويتلا أبسطاي لا 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 ما نالتي سنكراي أقوم تلا العمرة أما تمرة العمرة معلمي العمرة علمي أقوم بدنا العمرة تكتايوها ويتلا أبسطاي لا 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 ما نالتي سنكراي أقوم تدا نفس ما نسيحن انت أورك يقوسيدي كامار موايو يوان كجالاي هويو لانتا دوني ملا مانيني هدير كالغوديغو أبور كماراغي ها إذانين هويوي هننا فوين هويوي هايلان هويوي هايدانين هويوي هننا فوين هويوي أرحديو فهاغا قنتيو أركتي داي تيليغو آمنو نفتي داي هنا فوين هويوي أرحديو فهاغا قنتيو أركتي داي ardayda halkan ka qalin jabinaysa arday ka mid ah hooyadood ahna Suhayb Saynab maasha Allah waxaan leeyahay waad mahadsantihiin mahadiya idinka gaadho khayrna Allah idin siiyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh lama qiyaasi karo waxa way dufcadii toddobaad oo sideedaad ka qalin bedelanayso galaaska form 1 maanta farxadeeda aad iyo aad lama soo koobi karo waxaan u hambalyeeyaa dhammaan ardayda sideedaadka oo ka gudbay sanadkaani oo dadaal adag u soo maray inay ka gudbaan dugsiga dhexe ee u gudbaan dugsiga sare maanta waxaan la damaashaadaynaa ardayda sideedaadka waxaan rajaynayaa hadduu alla idmo insha Allah inaan galaaska ayagoo form 4 ah insha Allah la damaashaadi doono ilaahay idankiisa maanta farxad waxaan leeyahay galaaska sideedaad hambalyo waxaan kaloo aan rabaa inaan aad uga hadlo arday aad u weyn la yiraahdo Cabdullaahi oo ka mid ah arday ku dayasho mudan hadayna hortiina soo istaagay waxaan leeyahay ardayda ma ahan qofka bini'aadanka inuu cuuriyaan yahay madaxiisa lixaad wax kale ma ahan ardayga waxaa muhiim ah in maskaxdiisa uu niyadiisa oo ku simo in qadar Allah ay ku timid ilaahayna oo dhibkaas u keenay arday walbo waxaa laga rabaa oo cuuriyaan ah waan soo dhaweynaynaa waxaana ka rabnaa inuu waxbarashada hami weyn u sii yeesho
kuna dhiirado maxaa yeelay ardaygan 3 kiiloomitir oo soo lugeynaya maalin walba wuxuu ka imaanaya dhankaas iyo kalluunka maantana alxamdulilah dugsiga dhexe uu ka qalin jibiyey waxaan aad ugu faraxsanahay asiga iyo dhammaan ardayda la qalin bedeladay oo u qalin bedeladay galaaska form 1 waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan leenahay mudana maamule maanta heerkan aan taagannahay waxaan ku soo gaarnay waa hanaqaadkaagii macallimiintii aad adiga inoo soo xushay maanta heerkan na soo gaarsiiyey hambalyo salaan wax kasta la heli karo inaan soo dirno ka hakamayno waxaan jeclaan lahaa inaad hal mar adoo raaliya mikrofoonka noogu soo dhawaato weli waanadaada kama dhabe waalid waanadiisa lagama dhammaado mudana maamule soo dhawow saxabka iyo soo dhaweynta marka hore waxaan u mahadcelinayaa ilaahay awooddii iska lahaa ee noo suurtageliyey inaan meeshan isugu nimaado aanna ka soo jeedinno fikradaheenna iyo wixii hore ugu soo barannay iyo wixii kaloo soo socdaa isku dhiirigelin lahayn xaqiiqdii waxay ii tahay maalin weyn oo aad iyo aad u qiimo badan maadaama dad yaryar ee maanta inay wax bartaan diyaar u ah halkaa ay ka muuqdaan xaqiiq ahaantii cilmigu lagama dhirgo cilmiga wax laga dhirga ma aha maantana waxaad tihiin dad yar oo u soo kacaya inay wax bartaan adduunyada waxaa la dhahaa qaaradda ay ka aqoon badan tahay way ka horumarsan tahay waddanba waddanku uu ku macnaa aqoon badan yahay waa ku horumarsan yahay gobolba gobolka uu ka aqoon badan yahay waa ku horumarsan yahay degmaba degmada ay ka aqoon badan tahay way ku horumarsan tahay qofba qofka uu ka aqoon badan yahay wuu ku horumarsan yahay marka saa darteed si aad horumar u gaartaan aad la hanaqaadaan waxa adduunyada ka socda barta wax macallimiinta maanta idin hortaagan ay diyaarku u yihiin inay idin baraan run ahaantii macnaha waxaa laga yaabaa inay maanta soomaaliya ay ka dhammaan doonto isha aan dhahno ilaa macnaha waxba jiilba jiil kale ayuu macnaha wax ku wareejinayaa haddii intaan wax barato in wax baratay oo ay dhashayna macnaha waa hubnaa waa aragteen waalidiinta telefoonada markii EVC loo soo diro oo kaa lacagta ii soo saaray ii soo bixi dhahay maxaa u keena aqoon la'aana keentay mar aqoon la'aantaas in laga guuro ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay haddii aadan wax baran ogow waxaa noqonaysaa qof la hogaamiya mahmaha English waxay leedahay foolish and his property soon departed nacas iyo xoolihiisa isla markiiba waa la kala qaybsadaa because macnaha waxaad haysay haddii aad adigu xukumi karin oo aadan maamuli karin ee qof kale uu ku maamulayo waxay tegaysaa waxaaga inaysan waxba ahayn marka hala dadaalo waxa la barto ee waxbarashada aday ku anfacdaa waalidka ay anfacaysaa waddanka ay anfacaysaa khaasatan adigay muhiim ku tahay